السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش كحرن channel كيغا تكتور سجيا كسور دبادة channel كيغا جياوك موضوع ما انت كهذا كساب سيهاي أدور براد كنقضة سيدي ونقن كراقف لجعلي هاي أو له احترامه بالشدة الحياة لقى احترامه أو لجعلي هذا سيدي ونقن كرتا دوحة إذن سوق الدنيا دور قضبه أو كسار سن قف وناسن أو لجعلي هاي وأنا كحرن سيدا ونقن لهاي إن شاء الله بإذن الله كريم موقال كينا لايك نصارى ونسيشير كرايا أصحابتينا channel كان هذا سبسكرايب نصار مهل سنة هدي أينو نهاي بني آدم هاد يجروح عن جعل نهاي إن عن وحكستا أينو جعل نهاي أينو هنو سيدو كما مارنو إن عن مرولي بارنو ضد إن الجعل وإن دنينيا هذا waxa aynu aragnaa qof la jecel yahay dhankiisana loo wada cararo xitaa hadii la maqlo codkiisa qofna waxaad arkaysaa asagoo meel dheer ka soo socda codkiisa la maqlay in laga dhunto ama laga cararo ama la neceb yahay qofkaasi maxaa sababa hadaba waxaa jira wadooyin badan oo hadii aad raacdo ay dadku ugu jeclaan doonaan wadooyinkaani ma aha kuwo kaaga baahan ee laga wax kale toona kaliya waa fahankaaga baahan in aad hirgeliso kadibna ku dhaqanto waxa kamid ah koow noqo qof iimaan leh dadku way jeclaadaan qofku marka uu iimaan buuxa leeyahay alana uu ku xiran labo noqo qof daacad ah qofka aan khiyaanada aqoon dadka qalbigooda uu ku weeyahay saddex iska dhowr in aad u gafto qof ama dadka qaar dadku ma jeclaadaan had iyo jeer qofka gafka ama dhacdada badan afar ilaahay dartii u jeclow dadka oo dhan qofna adiga oo aan dan gaar ah aan ka lahayn hadii aad alle dartii u jeclaato waxa aad noqonaysaa qof dadka agtooda qiimo iyo qaayo ku leh shan qof kasta oo aad kulanto ku qaabil waji farxad leh una bilow salaan adiga oo dhoola cadeynaya uguna yeeraya magaca uu jecel yahay in lagu yeero lix had iyo jeer dhoola caday oo wajigaaga ha ka dhigin mid laga naxo ama laga diido dadku had iyo jeer qofka farxadda iyo dhoola cadeynta badan bay jecel yihiin oo xagiisa u soo xiisaan todoba indhaha ka laabo oo ha u fiirinin dadka gafafkooda sideed haddii aad taqaanaan qof ama uu magacaaga xitaa yaqaano booqo hadduu qofkaasi koodo haddii ay geeri ku timaadana u tacsiiday inta taqaana asaga sagaal farxad iyo murugo labadaba la qaybso dadka istaqaanaan marka ay faraxsan yihiin la qaado farxad marka ay murugsan yihiin murugta la qaado kana bixi murugta toban haddii uu ku azuumo si galgacayl ah walaalkaaga yaay oo ha ku diidin ko iyo toban maanta wanaag ugu bedel haddii uu qof ku xumeeyo aad wanaajiso waxaa laga yaabaa in uu isla yaabo qofkii oo ku raaligeliyo ayuu is arkayaa dhaqankan haddii aad joogayso ibna kuma xumeynayso weligaa dadka agtooda qiimo ayaad ka yeelan doontaa laba iyo toban had iyo jeer dadka u gargaar qofka gargaarka badan dadkana caawiya had iyo jeer dadku way jecel yihiin kama maarmaan saddex iyo toban noqo dhegaysta fiican dadku waa ay jecel yihiin qofka u dhago nuglaada dhegaysta qoraalkooda ama hadalladooda afar iyo toban muuji in aad danaynaysid qof haddii aad danaynaysidna arrimihiisa kana war haysid xaaladiisa hubaal wuu ku jeclaanayaa shan iyo toban hadiyado u keen oo ka farxi qofka asaga oo aan war u haynin hadii aad kaga farxiso oo aad u keento hadiyad weligii lagama yaabo inuu qofkaasi ku ilaabo waxa hubaal ah in aad hadii aad dhaqan geliso soo hiloowaya aragtidaada waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani fadlan muuqaalka la galay una sii sheer garee asxaabtaada si ay ugu faa'iideystaan macluumaadkan